qiimee gooninimadaada. Adiga waxaa tahay qof gooni ah, qof ka duwan dadka kale oo dhan. Ma jiro qof adiga oo kale ah, ma jiro qof adiga kuu dhigma. Quruxdaada, farxadaada, guushaada waxay ku jirtaa gooninimadaada, inaad ka duwan tahay dadka kale oo dhan. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey wax walba ood u baahan tahay. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa dhigay inaad ka duwanaatid dadka kale oo dhan. Waa inaad midaasi ku faantaa, waa inaad midaasi soo dhoweysaa, waa inaad midaasi u aragtaa inay tahay wanaagaaga oo dhan. Haddaba qiimee gooninimadaada. Midaas waa waxa lagugu talagalay. Buugga adiga qortid ma jiro qof kale oo qori kara. Fikradda adiga keentid ma jiro qof kale oo keeni kara. Adigu lamid ma tihid dadka kale. waayo halkan marka lagu keenay Alle subxaanahu wa ta'aala markuu ku keenay adduunkan wuxuu kuugu talagalay in adiga calaamadaada goonida ah dhigatid halkan. Laguguma talagelin inaad qof kale u ekaatid. Soomaa waa sidaas. Adiga ma tihid qof kale. Adiga waxaa tahay adiga. Si walbo aad tahay waa inaad ku faraxsan tahay qofka adiga Ilaahay ka dhigay subxaanahu wa ta'aala. Qofkaas waa inaad ku faantaa, qiimaysaa, kor u qaadaa, soo dhoweysaa. Gooninimadaada waa quruxdaada.